الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديك يداونا يا سؤالنا ربعنا كويدية بالكجواب. dadku markay dhintaan waa labo qof markuu dhinto waxa dadku baahiyaan meel walbana la soo dhigaa wanaagiisii iyo khayrku ka tagay iyo wixii wacnaa uu sameeyay iyo dhaqankii fiicnaa lagu yaqaanay qofna waxa meel walba yaala oo meel walba la saddex maraya xumaantu adduunka kaga tagay iyo fisqigii iyo foolxumadii iyo fadixada wuxuu ka tagay bal isweydiiyo hadeertada ay daawanaysid haddii naftuba kaa baxdo talow dadku gadaasha maxay sheegi doonaan su'aal aad u muhiim ah nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la soo mariyay janaasa la wado oo qabriga lagu sii wado wuxuu nabiga kaleey salaatu wasalaam way waajibtay markii dadku wanaag ku sheegeen mid labaad baa la soo mariyay oo xumaan baa dadku ku sheegeen nabigu wuxuu way waajibtay waxay ku dhahan saxaabada rasuulka maxaa waajibay wuxuu ku yiri qofkii hore wanaaga ku sheegteen wanaaga sidaad ugu sheegteen buu ugu waajibay jannuu leeyahay qofkii dambe xumaanta ku sheegteenna sidaad xumaanta ugu sheegteen weeyaan oo naar buu leeyahay markhaatiga ilaahay baa tihiin buu nabiga kaleey salaatu wasalaam markhaatiga ilaahay dhulka jooga ayaa tihiin dadka maanta ku yaqaanaay waxay ka markhaati noqon doonaan waxay kugu yaqaaneen waxaan si gaar ah fariintan ugu dirayaa dhalinyarta baraha bulshada maxaad caan ku tahay baraha bulshada soo dhigtaa maxaad caan ku tahay baraha bulshada ku faafisaa wallahi maalinta dhimatay taasaa ka haraysa ama maalinta aad dhimatay waxa la soo dhigi doonaa sawiradaadii khaldanaa iyo fiidiyoyadaadii foosha xumaa iyo fadeexad iyo xumaan waxaad ka tagtay baa la faafin doonaa markaas la dhahayaa ilaahay baa umada dhaafiyay ama waxa la soo dhigi doonaa wanaagii iyo sharaftii iyo karaamadii aad faafin jirtay marka labada ka tahay ayaad iiga soo jawaabi doontaa aad baa u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.